madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku soo gaaray magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Beledweyne waxa uu salka ku hayay kurgalka xaaladaha ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay fatahaadii webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay, waxaana garoonka diyaaradaha Beledweyne si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gacan qaaday dadweynihii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Beledweyne, waxa uu indheeyay qaybo kamid ah garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo qaybo kamid ah ay biyo fadhiyaan, biyaha oo saamixi waayay in diyaaradihii shacabka ay soo degaan muddo ku dhow ilaa iyo hal bil. waxa uu geesta kale madaxweynaha uu booqday kaamamka ay ku jiraan dadkii ka soo barakacay fatahaadii webiga Shabeelle oo Beledweyne ka sameeyay toddobaadyo yar ka hor kuwa oo ku nool haatan deegaanka Ceel Jaalle. intaasi kadib madaxweynaha ayaa gudaha u galay qaybo kamid ah Beledweyne si uu xog ogaal ugu noqdo musiibadii bulshada Beledweyne ku dhacday, waxaana madaxweynaha warbaahinta uu la wadaagay wixii indhihiisa uu ku arkay. musiibada dabiiciga ah musiibo qaran ay tahay muddo 7 casho ah ee magaaladu ay ku jirtay fatahaadaan 30 kun oo qoysna ay ka soo 30 kun oo guri 100 kun oo qoys ay ka soo barakaceen oo qaarkood aan ku aragnay hadda meesha ay ku booqdeen Ceel Jaalle badarkan xaafadan xaleela xawqaad dadkooda waa deefaarka waa wada dhaxay meel la joogi kara maaha. waxaan u sameynay musiibo qaran ah oo ay dowladdu ka qaadanayso qayb weyn oo la yiraahdo inaan soo gaarno shacabkeena Soomaaliyeed oo halka u waxyeelooday oo la qeybsano shirka iyo xanuunka ku jiraan. insha Allah wax alla wixii karaan aan hayno oo awooda taasoo buuxigeena beesha caalamka international community waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay qayb weyn ka qaataan dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay yihiin haday dibadda iyo gudaha joogaanba waxaan ka codsanaynaa inay qayb weyn ka qaataan hawshan. madaxweynaha ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ku hadlayay afka duubka dhaqanka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, ayaana madaxweyne Farmaajo ka codsaday 2 qodob oo kaliya. Soomaalidu waxay madaxweynuhu loo yimaado madaxweyne annagu codsigaanu waa 2 qodob. aeroboortka waa aragtay waxba ka sheegay codsiga loo weydiiyo waxaan kaa codsanaynaa inaadna raacdo oo ilaa la magalaan iyo quudada leexda qabto aad soo aragto si aad uga kaaftoonto wax hadalba la yidhaahsan. waxaa jira markaan u soo noqda aeroboort hadda ka hor dowladda Talyaaniga inay ballan qaaday aeroboorada Soomaaliya inay dhisayso. waxaa dhacday wasaaradda qorsheynta inay ka reebtay aeroboorka Muqdisho oo jiro waqti uu hayno mudane madaxweyne intaasna la soco diftaasna waa qabnaa. madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo dhankiisa isna hadlay ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu xoojiyo ballanqaadka uu shacabka ka barakacay Beledweyne uu sameeyay. wax sheegina waa ka dhantaa dhaxda ku soo aragtay airport waa soo aragtay fatahaadii waliba annagoo ka soo noqonay waa soo aragtay kor waa yeelay waa wada indho. waxaan hubaa inaad ka dhan tahay in wax lagu sheego. annaga waxaa qiimo noogu filan oo karaamo noogu filan oo aan isleenahay wixii aad rabteen waad hesheen imaantinka aad noo timid ayaa noogu filan.
ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay gacan ka geysan doonto dhismaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif si gurmad gargaar ah shacabka ay fatahaadu waxyeeleysay looga soo dejiyo waxa uu dhinaca kale musiibo uu ku tilmaamay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay isaga oo xusay in kaalmooyin kala duwan ay dowladda Soomaaliya la soo gaari doonto dadkii fatahaadu ay saameysay maanta waxaa halkan u yimid inaan idinla qaybsado xanuunka iyo dhibka aad ku jirtaan oo ay keentay musiibada dabiiciga ah oo lagu yeeray musiibo qaran oo runtii kulligeedna wada xanuujisay waan ognahay dad kor dhaafaya maanta inay bannaanka degan yihiin in laga soo qaxay magaaladii weyneed ee Beledweyne laga soo qaxay oo ay kulligiiya fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku odaysan yihiin oo la raadinaya sidii lagu geli lahaa alxamdulilah markaan laga sheegin dhaawacyo waa jiraan waxaan idin caddeynaya oo aan idinla wadaagayaa inaan abuurnay aan sameynay magacawnay guddiga heer qaran oo musiibo oo uu hogaaminayo wasaare ku-xigeenka maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keliya ma aha ummadda Soomaaliyeed kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga qaybta dowlad federaalka oo dowladda dhexaa federaalka ah waxaa qaadanaynaa qayb aad iyo aad u weyn oo qayb dhexaadaan qaadanaynaa insha allah hadduu laa yidhahdana waxaan ka soo gaaraynaa gargaar degdega hadduu laa yidhahdo Maxamed Ibraahim Siyaad Kalson TV Beledweyne.